Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ahaa oo la dhihi jiray Cumar. Wuxuu ku noolaa tuulo yar oo aad u qurux badan. Cumar wuxuu ahaa wiil leh hami, wuxuuna ku riyoon jiray inuu horumar weyn ka gaaro nolosha. Laakiin mar waliba wuxuu la kulmi jiray dhibaato weyn. Dhibaatadaas waxay ahayd inuu ka cabsan jiray fashilka iyo wax dhici doona mustaqbalka. Maalin maalmaha ka mid ah, Cumar wuxuu go'aansaday inuu socod dheer ku maro kaynta ku taal agagaarka tuuladooda. Intii uu socodkaas ku guda jiray, wuxuu arkay oday da' ah oo fadhiya geed weyn hoostiisa. Odaygii waxaa ka muuqata xikmad iyo degnaan. Cumar ayaa u tagay odaygii, wuxuuna la wadaagay fikradaha xunxun ee mar waliba ka hor joogsada inuu noloshiisa horumariyo. Odaygii ayaa dhoola cadeeyay, wuxuuna ku dhahay, wiilkaygiiyow, waxaan kaaga sheekeynayaa qiso. Waxaa laga yaabaa qisadan inay ku saacido. Kadibna odaygii wuxuu bilaabay qisadii isagoo leh, waxaa jiray nin farsamayaqaan ahaa oo xirfad badnaa, waxaana la dhihi jiray Anas. Wuxuu ku noolaa tuulo aad ugu fog tuuladan. Anas wuxuu caan ku ahaa xirfadda samaynta agabka guryaha lagu quruxsado. Laakiin wuxuu mar waliba shaki ka qabay waxa uu sameeyo inay dadka kale ku qanci doonaan. Wuxuuna mar waliba ka fikri jiray waxaan uu sameynayo inaysan dadka kale ku qancaynin. Maalin maalmaha ka mid ah, Anas wuxuu go'aansaday inuu sameeyo agab qurux badan, naqshadiisana asaga ay gaar u tahay, si uu ugu soo bandhigo madxaf weyn oo ku yaala magaalada, kaasoo agabka cusub lagu soo bandhigo. Anas wuxuu shaqadiisa ku biloobay si xamaasad leh, laakiin mar waliba uu shaqada sii wato, waxaa qabsan jiray fikrado xunxun. Waxaana shaki ka geli jiray tayada shaqada uu qabanayo. Wuxuuna ka fikri jiray cilladaha yaryar ay dadka kale arki karaan. Laakiin halkii uu ka hakin lahaa shaqadiisa sababaha la xiriira fikradahaas xunxun, wuxuu go'aansaday inuu dhammaystiro shaqadiisa, isagoo dhammaan dadaalkiisa iyo hal-abuurkiisa ku bixiyay samaynta agabkaas. Markii uu dhammeeyey shaqada, wuxuu arkay inuu sameeyey wax aad u qurux badan. Nafsad ahaantiisana wuu ku qancay waxa uu sameeyey. Wuxuu go'aansaday inuu agabka uu sameeyey geeyo madxafka sida ay dadka kale u arkaan. Dadkii ka soo qayb galay bandhigga ayaa si aad ah ugu helay agabkii uu sameeyey Anas, waxaana loogu iibsaday qiimo aad u sareeya. Anas arrintaasi wuxuu ku kasbaday khibrad, wuxuuna ka bartay in fikradaha xunxun ay yihiin waxyaabo malaabaal ah oo carqaladeeya waddada guusha. Wuxuuna ogaaday in kalsoonida nafta iyo adkaysiga ay yihiin furaha lagu gaaro guusha. Cumar ayaa dhoola cadeeyay markii uu sheekadaas maqlay, wuxuuna dhahay, waan fahmay hadda. Waa inaan la dagaalamaa fikradaha xunxun, mana laga yaabo inaan u oggolaado inay iga hor istaagaan horumarkayga. Odaygii ayaa dhahay, fikradaha xunxun way jiri doonaa mar walba, laakiin guusha waxay ku timaadaa inaad ka awood badnaato fikradahaas xunxun iyo inaad mar waliba naftaada kalsooni ku qabto. Cumar wuxuu ku noqday tuuladiisa isagoo leh ruux cusub, wuxuuna bilaabay inuu si aad ah u shaqeeyo si uu riyooyinkiisa u gaari lahaa, isagoo mar waliba xusuusanaa erayadii odayga xikmadda badnaa iyo qisadii ninkii farsamayaqaanka ahaa. Muddo kadib, Cumar wuxuu gaaray guulo badan, wuxuuna noqday shakhsi ay ku daydaan dadka kale ee tuulada ku nool. Sidaa darteeda, haddii aad rabto inaad guul gaarto, naftaada ku kalsoonow, dadaal dheeraad ah la imow, aqoon yeelo, hana isdhiibin weligaa intay nafta kugu jirto. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Waxaan rajaynayaa inaad fahanteen nuxurka qisadan. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, riix badhanka like, lana wadaag asxaabtaada kale. Haddii aadan weli iska diiwaangelinin channelka, fadlan riix badhanka subscribe si aad ula socoto waxyaabo badan oo xiiso leh kuna anfacaya. Mahadsanid. Assalaamu calaykum.